sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa xal u helay qulqulka hogaamiyayaasha PLO ee ka imaanaya Qubrus, Liibiya iyo Tunuusiya, kuwaas oo ay u suurto gashay in ay gaaraan Lubnaan iyada oo loo sii marayo dekedda Limassol ee Qubrus. Markaa waxaa ku adkaatay sirdoonka Israa'iil ee Mossad inay daba galaan boqolaal doomo ah oo ay baaraan. xalku wuxuu noqday Amiir Xaaji oo ku dhashay daanta koonfureed ee caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan kaltirsigii 1955. Amiin Cabbaas Xaaji wuxuu caan ku ahaa shaarifkiisa dheer magaciisa xarakiga ah ee sirdoonka Mossad loo garan ogaana waxa uu ahaa Romangi, magacaas uu lahaa laacib kubadda cagta ka ciyaara oo u dhashay dalka Jarmalka. Amiin Cabbaas Xaaji waxa uu ahaa Shiici Lubnaani ah, wuxuuna deganaa daanta koonfureed, wuxuuna ka dhashay qoys maalqabeen ah oo hodan ah. Sirdoonka Mossad waxa ay ku tilmaameen mid muhiim u ah oo faa'iido u leh iyaga, waana haliyey dhanka basaasnimada ah oo u adeegsaday dumarka jirkooda ka ganacsada si uu u rido saraakiil ka mid ah hay-adda PLO oo u timi Qubrus si ay u gaaraan Lubnaan. waxaan kaliya aan rabay waxay ahayd inay Israa'iil tirtiraan hay-adda PLO, wax lacag ah xataa $1 har noqotay kama qaadan Israa'iil adeega aanu adeegayo, ayuu basaasku yidhi. Amiin Xaaji waxa uu ahaa isha macluumaadka wax kasta oo ka dhacaya Limassol oo ku saabsan naagaha jirkooda ka ganacsada, hogaamiyayaasha iyo darawallada. wuxuu u gudbin jiray macluumaadka iyo xogaha qaybta sirdoonka Israa'iil ee 504aad, wuxuuna ahaa isha xogaha Israa'iil muddo ku siman 3 sano, wuxuuna diiday daabicidda sheekooyin badan oo uu guuleystay. dadaalkiisii wuxuu horseeday qabashada boqolaal naftood hurayaal ah iyo helitaanka walxaha qarxa oo badbaadisay nolosha tiro badan oo Israa'iiliyiin ah. maanta ma uu la dagaalamayo reer Falastiin ama reer Lubnaan, laakiin wuxuu leeyahay sirdoonka Israa'iil ayaa gacanta igu dhigay sida ay lumay oo kale. Israa'iil waxaan ku noolahay waraaq sifir ah oo ku meel gaar ah, mana helo wax xuquuq ah iyo daryeel caafimaad, ayuu yidhi Amiin Xaaji. wuxuu daacad u ahaa yaraantiisii Cimaad Muqniya, kaas oo ku biiray xoogga 17aad ee Falastiiniyiinta, ahaana madaxa Xisbullah ee Lubnaan oo lagu dilay shirqool magaalada Dimashq sanadkii 2008. waxa uu ilaalo u noqday Kaamil Shamcuun 1970 ilaa 1980, kadibna waxa uu waardiye iyo ilaalo u noqday tiro kale oo mas'uuliyiin ah. Amiin Xaaji wuxuu sii waday inuu u gudbiyo xogo iyo macluumaadka sirdoonka Israa'iil qaybta 504aad isagoo adeegsanaya doon yar oo badda sii dhex jibaaxaysa. wuxuu macluumaad ka siiyey taliska guutada 17aad tirada ciidamada PLO iyo halka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan Abu Jihaad iyo Abi Hawl. 1982 wuxuuna warbixin ka siiyey Cali Xasan Salaama oo ay ku dileen Israa'iil 1979kii shirqool. Amiin Cabbaas Xaaji oo hadda ku nool magaalada Nahariya ee waqooyiga Israa'iil ayaa qirtay inuu haysto kaar aqoonsi oo ku meel gaar ah, wuxuuna ku nool yahay kaalmooyinka iyo deeqaha ay isugu soo dardaraan asxaabtiisu. wuxuuna cabashadiisa ku cabiray lahjad qaraadh mar la wareystay, isagoo yidhi waxay ii miirteen sida liinta oo kale, oo waxay iga heleen macluumaad iyo xogo aad u qaali ah. waxaan siiyey qalbigayga, sidoo kale naftayda xataa waan siiyey. maantana waxay ii tuureen sidii maro dhammaatay oo duugowday oo kale, mana fahmin waxa ay sidaas ila macaamilayaan, ayuu yidhi Amiin Cabbaas Xaaji. tani waa caaqibada u dambaysa qof kasta oo u adeega cadowgiisa, iibsadana sharafta iyo shacniga dadkiisa iyo dalkiisa. marka uu danta uu kaa leeyahay cadowga uu kaa dhammaystana wuxuu ku tuurayaa sida maro dhammaatay oo kale. daawade haddii aad halkan soo gaadhay oo aad dhammaysato sheekada, waxaan kaa codsanaynaa in aad subscribe noo saarto, barnaamijka haddii uu ku qanciyena aad like noo saarto.